inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warmaaragteen sabtidii waxa dhacay marka nimankii Iiraan ahaa waxa weeye ceeb weyn baa soo gaartay ya marka sabtidii markay ahayd ba Israel bay soo weerareen waxay Israel ku soo daayeen 350 gantaalood ku soo daayeen has grown in recent days. It could include more than 100 drones, 150 cruise missiles, and even ballistic missiles used for long-term strikes. Waxa soo gaaray xaway airport oo wax yar ay soo gaartay airport oo militariga Israel leeyihiin baa wax yar soo gaareen oo meel yar ka jabtay. The barrage of drones and missiles left a large hole in the ground at the Nevatim air base in southern Israel. Haddana gabar yar oo tadawajira baa meesha isku dhaawacantay. Marka waxa weeye weerarkii Iiraan soo qaadeen oo laga baqay oo la dhahay meeshan waxa ka bilaabanaysa dagaalka saddexaad adduunka. Waxay noqotay hal bacad lagu lisabay noqotay. Wixii waxa isdhaysa nimankan Iiraaniyiinta askartooda mageel jiriyal baa waxaas dhan intay meesha ku soo daayeen Israel ku soo daayeen inuu wadankaas wax badan aysan gaarsiin. Marka 1 April markay ahayd Iiraan waxa weeye konsuliyada ku leeyihiin Dimashq baa waxa weerareen Israel marka madfac bay ku rideen marka daartii dhan dhulka la simay oo halkaas waxa weeye waxa lagu dilay niman saraakiil ah oo Israel Iiraaniyiin ah baa lagu dilay waa kan sawirkii marka sanad ugu jeedaan waxa weeye dabaqii dhulka la simay haddana waa kan meeshii oo jabtay oo dadkii ku soo baxeen la fiirinay marka Israel waxa marka Iiraan markaas waxay ku dhaarteen inay u argudayaan nimankii la dilay iyo weerar lagu qaaday konsuliyada marka sadarteeda bay madaafiic fara badan ugu soo daayeen Israel sabtida hadda aan soo dhaafinay marka saas waxa xaqiijinaya ciidanka Israel afhayeenkooda waa over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones and rockets were fired from Iranian soil as well as Iraq, Yemen and Lebanon towards the state of Israel. سألك اسمه غليسون هوي صدق بقول كنت على وقت بلوس داي وطن كاس كنت على صح لوس العراق لبنان إيران يمن مركا هوي وحاس ودن أو كنت على بلوس داي إسرائيل وحين نقطة هالبعاد لول 7 وات يعني إنك أصعب شيء واقن أفكس كشيء ليست. Defense systems were activated, the threats were intercepted, and Iran's attack on Israel failed. Marka ku dhici kartaa Iiraan in oo weerar saas u culus ay qaadaan ee Israel wax badan ay soo gaarin. Waxa weeye Israel technology cusub oo aad u casri ah beestaan. Iiraan waxa weeye technology-gooda waxa weeye wax laga tagay oo qadiim ah weeye. Marka waxa oo Israel ku badbaadeen waxa weeye waa air defense system waxa la dhaho. Marka wax walba lagu soo gama oo cirka maraya baa dhulka intiisa soo gaarin baa meesha lagu qarxinaya. Marka waa kan buuxiyo. Mas'uulka waa kan soo jeedaan. Marka radarkan baa kamid ah. Marka radarkan wixii soo hormaraa oo sharci daro soo maraa waxa weeye madfacan baa laga sii dabadeenaya ya marka madfaca laga sii dabadeenaya marka wixii cirka inta ku jiraan baa la qarxinaya marka waxaana inta ugu jeedaan waxa weeye waa kantaaladii ay Iiraan soo rideen kulli waxa weeye intaysan dhulka soo gaarin baa cirka lagu qarxiyay. Explosions lit up Israel's night sky as interceptors took down dozens upon dozens of Iranian-launched drones. Baashan air defense system kala waa technology aad u muhiim weeye marka waxa weeye wadankii haysta kaas waxa weeye ka badbaadayaan in laga soo weeraro cirka ya hadda waa kan Mareykanka oo kale kan haystaan Patriot system baa marka wixii cirka inta ku maqan baa loo qarxinayaa marka waxa weeye saas bay uga badbaadaan in cirka laga soo weeraro haddana mar dhow wax soo alifay technology-gan THAAD baa madfacan waa kan mar dhow baa test lagu sameeyay marka waxa weeye waa kan technology-da ugu dambeeyay oo kan waxa weeye hubka Israel isticmaalayeen bay ka mid ahayd sabtida hadda oo ay ugu badbaadeen Iiraan waxaan oo air defense systemka waxa weeye wadamo badan baa sameeyaan xitaa Ruushka xitaa way sameeyaan kana soo jeedaan S400 baa la marka waxa weeye wixii hadday doon noqoto diyaarad ama doon noqoto missile cirka baa loo qarxinayaa marka Israel waxa weeye air defense systemka ay haystaan oo ugu badbaadeen Iiraan weerarkii Iiraan Mareykanka uu sameeyay marka Mareykanka lacag badan siiyeen oo waali ah waa kan soo jeedaan marka hal dhahay ilaa 2011 waxa weeye Israel waxay ka heleen Mareykanka caawimaad bay ka heleen oo gaaris 1 bilyan oo dollar oo u isticmaaleen inay ku dhisaan defense systemka haddana sanad walbana waxay ku isticmaalaan 500 milyan oo dollar in la casriyeeyo systemkaas
marka taas waxa weeye wax oo bilaash ma marka waxaan waxa weeye wax oo dadaal badan loo soo maray weeye laakiin si hanada maanta fiirsid 1 bilyan bar wax ma marka taas waxa weeye waa arin oo dadaalkaas kala la rabay in Iiraan la yimaadaan marka Iiraan ayagana way sameeyaan hubkaas kale waa kan warshadoodii oo ay ku sameeyaan madaafiicda laakiin sidii jirta waxa weeye technology-gooda wax aad u qadiimi weeye ya marka waxa weeye lacagtii Israa'iil isticmaalaan kulama isticmaalaan marka saas waxa weeye darteed bay weerarkii ugu soo qaadeen Israa'iil saas darteed bay hal bacad gunasay noqotay marka Israa'iil xitaa waxa la siiyay caawimaad ahaan ba Mareykanka wuxuu siiyay diyaarad cusub weeye technology cusub alla F-35 baa marka si qaabka u samaysan tahay soo jeedaan qaabkaas waxa weeye suurtagal waxa ka dhigaysaa diyaaradaas inay raadaarka dhumato oo marka waxa weeye si fudud bay meel walba u tii kartaa haddana technology badan oo casri ah baa ku xiran. The F-35 takes the most powerful processing and computing power available today and puts it on an airframe. There's no way for a single human being to process all the information that comes into an F-35. Computer oo quwad badan baa ku xiran, camera fiican baa ku xiran. Marka diyaaradan waxa weeye waa diyaaradii loo isticmaalo weyn nimankii oo saraakiisha Iiraaniyiinta ahaa meeshii loo qarxinayay bishii hore bishan Abriil bilowgeeda. marka weerarka oo Iiraan weerarkooda oo noqotay hal bacad lagu lisay 10 muhiim ah baa la rabaa dadka inay inta ka bartaan marka dhibka jira maanta waxa weeye Iiraan waxa weeye khasaarood weerarkooda wuxuu khasaaro noqdo waxa weeye maalgelin badan kuma sameeyaan technology cusub la soo alifo iyo waxbarashadooda ya taas wax la iska dhahay ma waa kan basoo jidaan marka inta ku jidaan waxa weeye shirkadaha ugu weyn oo hubka cusub sameeyo technology ugu weyn oo hubka sameeyo kulli waa reer galbeed weyn Iiraan ama wadamada oo Israa'iil dagaalsiin kuma jiraan liiska marka daarabtid in Israa'iil ka badisid oo inaad wixii maalgelin ku samaysid way hubka la soo sameeyay dib kale jiro waxa meesha wadamadan oo Israa'iil dagaalsiin waxa weeye maalgelin kuma sameeyaan in technology cusub la soo alifo ya marka sanad walba waxa weeye wadamada oo horumarka gaaray ay budget oo gaar ah u leeyihiin in lagu isticmaalo in cilmi baarid la sameeyo in technology cusub la soo sameeyo marka wadamada oo dadaalka sameeyo kuwana soo jeedaan kuwana ugu dadaal fiican oo dadaalka sameeyaan Israa'iil way ka mid tahay soo jeedaan marka Iiraan halkaas kuma jirto marka Iiraan haddii rabaan technology oo casri ah haddii rabaan inay alifaan waa inay lacagti keenaan way lacagti isticmaalaan haddana dhib kale jirto waxa weeye Iiraan iyo wadamada la midka oo isdagaalsan yihiin Israa'iil waxa weeye waxbarashadooda systemka waxbarashadooda aad buu liidataa ya hadda ka soo qaad wadamada oo caruurta iskoolada wax lagu baro ugu tabsan waxa weeye kulli waa waxa weeye Iiraan kuma jirto kulli waa reer galbeed way ama Asia way soo jidaan haddana waxa weeye si inta ku jidaan jaamacadaha ugu fiican hadda ka soo qaad jaamacadaha oo topka ah oo xisaabta laga barto kulli waa reer galbeed way soo badan yihiin ya 300 university liis ku jiray Iiraan iyo ama wadamada kale oo Israa'iil isdagaalsiin kuma jiraan liis haddana jaamacadaha engineering sidoo kale oo ugu tabsan adduunka Iiraan kuma jiraan liiska ya waa kan way xaqiijinayeen marka waxbarashada quality-ga in la fiicnaysiyo aad buu muhiim u tahay sababtoo ah marka dadkii si fiican wax u bartid waxbarasho fiican helaan dadkaas waxa weeye waa dadkii alif lahaa technology waa dadkii cilmi baaris sameyn lahaa way marka cilmi fiican marka dadka haystaan markaas baa wax la sameyn karaa markaas baa waxa weeye la keeni karaa hub oo la iska celin karo Israa'iil laakiin inta ka horeysa waxa weeye waa fadhiista way waxa ma haystaan daawadayaal barnaamijka halkaas buu ku ekaa marka aan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saarta dambe